markii qabataa idin dheereynaa insha Allah. Alo Saadiyo. علي Seetahay. الحمد لله يعني ور Khayr asxaabtina waa u sii sheegay arimahaaga oo dhan ma fahanti. حتى لما تدو سلامة يا مركوات شوف دوهي Haye. ما حاوسي شيء تصحتي asxaabtaada waxa u sii sheegay asxaabteedu waxa u sii sheegay in adiga fanka mar hore aad ka baxday oo aad ba iska aamustay anigana aan kugu dhiirigeliyay in aad fanka maartay aad sheegtid in aad ka baxday si oo heesahaaga dadka dhageysta ay u joojiyaan in iskaga saaraan صح واي هذا كور هبين waxaa jirta aska go'aansaday adi muddo 2 bilood ama bil iyo xogaa ka hor ee marka indane waxa isdahay waxba sheegin iska yaraa muso iska yara day safiya marka in la sacdiyaantii oo hore go'aansaday iska dayna meelka heesay ma aan jeclayn ayama dambe xataa dadka markaas aragno way dhahaan sacdiya fanaanadii hebelkii dhaho waxaan ilaalin fanka iska daya fanaanada leedahay ما شاء الله ان هذا waxa rabaa in aad u cadeysid dadka videogaaga arki doono qof kasta oo loo share gareey oo arki doono in aad fanka caawa adigoo maxaan ku raada hore uga baxay inaad u cadeysid dadka maxaan ku raada YouTube-ka ku jiro oo videogaaga daawo doono in aad fanka ka baxday iyo waxaad ka codsan lahayd horta qaali horta baayad qaali waa maasan tahay waayada ay soo dhiirigeliyeen maanta yani aan soo shaaciyo alina shaaciyo ma jecleen safiican maadaama oo tiri hadii aad ku sheegto heesahaaga iska deyniya YouTube-da way ka saarayaan marka saas laajigeedan waa ku go'aansadeen aan maxay heeteen aan sheego inkastoo aan jeclay umada laakiin oo soo fariisto laakiin waa iska dareemi kartaa xaaladahaaga yes xaaladaha ana iska yar culus umada xal ay soo duceeya insha Allah marka maxay heeteen wani waa ka baxay aka toobadkeen mudikri waa ka toobadkeentay because wax kasta oo fiiri bay wax kasta oo fiicneen oo Ilaahay raali ka ahayn qofkii ka soo laabta wuu ka toobadkeenay moogtahay marka waxa waa aniga waa buugaas waa soo xiray isoo duceeya inuu faraj qeyr qabilaha isi furo oo ka qeyr badan dadka heesaaga dhageystana maxaa ku dhahaysaa waa dambiga igu badnina kasta say kaatay haliga joojiyo ما شاء الله سعديو هذا الكسكما في عنو هذا الكسكما في عنو اوكي رير هذا اللي بيه سعديو واوكتين ان ددك ما عرفت هذا الكو ما عرفت كوفي عن ماهن انا انت كلا تكا غارسينايو او صفي عن الله هلاي سعديو walaalayal oo loo soo duceeyo sideeda kale waxa waaye inuu Ilaahay ma aragtay si nabada oo way culustaay inuu Ilaahay si nabada ma aragtay ku kala keeno insha Allah una soo duceeyo in fanka iyo wax dambe Ilaahay uu dib ugu celin sida anagna noo soo duceeyo insha Allah hay Saadiyo waa mahadsantahay saxaabay Saadisimo waa u jeedin in wayna ka baxday heeseedana la iska daa insha Allah Saadi hayaa dhow soo wacay ana dadkan si fiican kaaga celinahay insha Allah ay waa u jeedin walaashiina way idinka codsanaysaa ina heeseeda iska daysiin Saadiyo dadka ma oo maartay hadalka ku fiican soo masaas darteed ay maartay hadalka u badin marka waxaad ku codsanayaa ana walaasheeda adiga oo daawanaya walaalkeed ama walaasheeda heeseeda hal iska dhaafo dadka YouTube-da ugu jiraan ayada intay taqaanay gooni u wacan doonto intaysa garanaynin please ha ka saaraan codsigeedana loo tixgeliyo videogana loo share gareeyo fanaaniinta kale oo ka baxayna aniga waxaan ku bogaadinayaa Ilaahay dartiisa uga bixi kartaa yes laakiin walaalay aniga maadaama aan maxaan ku raay aan dhigayga ku maqla qofka inuu u bogaadiyo walaalkiis u sheego hadii qof uu dulmi kugu haayo oo dulmigan uu soo ogeyn in dulmi uu kugu haayo hadaad u sheegin asiga qofkaas dambi kuma laha soo marka heesahaaga dadka daawanayo dambigoodi goonida aheeda ayaa u socoto laakiin hadaad ku tiraadid iga joojiya adiga dambi kuma socdo ayaga oo kaliya u soconay because iyaga ayaa doortay saasirteed ayaa leeyahay fanaan kasta iyo fanaanad kasta dad kala ka bixin waxa inta ka bixisay taariikh oo kaleeto wuu shaaciyay inkastoo aniga aan arkin videogiisa laakiin wuu ka baxay aniga maxaan ku raad taas waa xaqiiq la hubo BK sidoo kale waad ogtihiin Axmed Bik mar hore ka baxay Cabdihani Xamdayar maxaan ku raad Xamda Queen mar hore ahayd dadka kale fanaaniinta kale ku jirna anigu hadii la dhilaa maanta fanaaniinta Soomaalida dhan fanka way ka bixeen waxaan dareemi lahay inaan nahay dad walba waxaan nahay islaamnimadu ku weyn tahay Soomaali markaan nahay inkastoo hadda ay balaayo dhan nagu soo biirtay oo qof gaalooba awal laga heli jirin qof islaan oo islaamnimada ku dhashay mooyaane qof hadda waxa soo baxay dadka Soomaalida islaamnimada way ku dhashaan laakiin hadda gaalnimada way galeen
waxyaabo badan oo xun ayaa naga soo baxay ilaahay waxaan ka baryayaa kuwii gadaal ka fidnoo ilaahay nagama dhigo inta hadda xunna oo wanaaga ka tegina ilaahay wanaaga u soo celiyo dhammaantiina u wada duceeya walaalkiina walaashiina qof kasta aniga kaliya ma ahan waa inuu u duceeyo qof walba oo muslina oo waxaan ku jiro inuu ilaahay ka soo hanuuniyo fanaaniinta Soomaaliyeed kulligood waxaan leeyahay qofkii qalbiga ahaan uga baxay video ha iska soo duubo hadhow aniga fanka waa ka baxay because of waxay kugu anfacaysaa heesahaaga waa la joojinaya dadka heesahay i joojiyaan ay dhahayaan aniga kuwayga iga joojiya ku Sacdi Siman caawa maqlaysiin walaalayaal qofkii si dhageysta asaga iyo ilaahiisa waana mahadsantii dhamaantiin videoga hala share gareeyo haloo share gareeyo ummadaha aan fanaaniinta ma aragtay kala iyo kuwa dhageystaba bataatan inaysan wax fiican ku jirin wax kale oo rabaa waxa la ii sheegay in barnaamij ahad la qaban doono oo shirkiyaha qaban doono aniga waxa waa sidoo kale waa la iga wacay inaan taga ayaan rabaa oo maxaan ku ka soo qayb galo haddii Nairobi degan tahay ka soo qayb gal wacdiga wana anfacaya su'aalaha aqabtid sheekh inkastoo aan arkin isagoo su'aalo la weydiinayo anigu waxaan rabaa inaan su'aalo weydiiyo adiguna hadda su'aal qabtid oo kale weydii insha Allah ta'ala hadda galabteedina waxa la iskugu imaanayaa fajri qofki qeyr raba ha imaado dil wala show la dhigaya bit waa bixisiin showgaas aad ogeyn inaad ku soo dhimanaysid inaad ku soo rafaadaysid inaad ku nabaatin inaad ku raaxaysan maysid kulay shaydaanku waa meeshiisa laakiin meesha qeyrka iskugu imaano waana mahadsantiin dhamaantiina peace and love